وهكذا سي مهمة إن الذهبين كي بادي دون تتخطرتها ليلة القدر ونبي وكوشي عليه الصلاة والسلام طبعا كدمين لقى بادي دونه وهدنا يري التمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر بنبي وهدنا في كل وتر وارتبان كدمين كالرادية وهدنا وحكسي الرادي سامبون بنبي عليه الصلاة والسلام هبينا وتر كاه هبينا وتر كاه كسي الرادية ومحاد قبن عايشة waxay tiri oo ilaahay haduu ila kulmiyo maxaan yeelaa xadiidka ibn Maaja iyo Tirmidhi ba warinayaan Sheekh Albani saxiix ay sheegay wuxuu nabigu yiri alayhi salaatu wasalaam quli allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni wa tiraada allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ilaahay mid xafiyabat ay afide oo afiga rajal ربو يعفده إذن هبين كان سيادو الراض عيسو بريد إلهي بضي وهبين كن نبي قليل فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم حديث أحمد النسائي بورين أيام شيخ الألباني الصحيح قلت المامية وهبين كم بلاد كخير بدن سيدا قرآن كما شاقيد ومن حرم خيرها فقد حرم بالنبي هبين نكا خير كيدا وايا هبين خير كيس نكا وايا كاسي خير بوا وخير بالا ياشا سيانا غبير هبين كان رادعين بل كم بلاد عبادته تضم بيسيه هدي شقالة هاي oo lagu yiraahdo 10 maalmood maalin kamid ah hadaad si fiican u shaqaysid kun bilood mushaharkood baa lagu siinay waxaad sameyn lahayd hadda wax weyn oo kala lama sheegin waan shaqaalaad miskiin oo $1 $500 $700 wax qaata dabeetana waxa lagu yiri 10 kana casho maalin baa ku jirta hadaad si fiican u shaqaysid kun bilood mushaharkood baad qaadanaysaa كم بلاد مشاركات وإمسا ده بنشن باد جلسة عمرك قاعد تكهدي وصدق هي سديتن يا نيرا صدق هي سديتن سنة نيرا دويا هدي بقى شقادو مركا كحول أنت مشاركة قبل جسمه هذا طبعا كعشر مالك النحرة دي هذا تصفي عنه شقيسو بنشن كهاد قادنا يسو وفرد قال عقد كوي ما يسو بل كورة مركا الجنة هاي هذا بقى وعلى هلية يا ماشى يا خير كله هلية مركا يتهاي جنوين كورة سيدا اوغيد ايا الهي سبحانه وتعالى سلينو درنسيو هبين كان فضلي سالين يدي كو وروا هبين القران كسو دغاي بالله انا انزلناه حقوقا في ليله القدر خير من 1000 شهر وهبين كي الهي سبحانه وتعالى ودورتي هذا الكيسه وادنها كل هدليه وحو شيغيو إنه سودتشيو وهبيك القرآن كوشيغيو كم بلوت ودور يسيديتن سنادات وسدح يسيديتن سنة وحكا بدن بلا دير سدح يسيديتن سنة سيدو لمدي يعني وحويا صلاة هبين كنتو كتا سدح يسيديتن سنادات بلوت سنادات سلادات كم بلوت سلادات كوريس يودي قطع وردي دا انت سو دغميا يعني عمل كخير كاد شقيستا عمل لشقين يدور يسيديتن سنادود بو maxay ayuu la fadliyo u dhigmaya ilaahay wuxuu tilmaamay habeen barakaysan iyo hadaad inuu baraka raadinayso Soomaalidu barakay doontaa Soomaha xabaala waa laga soo barakaystaa meesha waa laga barakaystaa waa baraka la raadinaya hadaad baraka rabto inna anzalnahu fi laylatin mubarakah ba ilaahay هبين بركيسن هبين كم بقى الرادي وهبين ملائكته سودكته جبريل له سودكه حتى جبريل ملائكته دم سودكته وقدر كان القدر علماء المفسرين قال بابا شيغا ان تهي من الضيق عديده تهي وحنفله يا عالم كل لغوي هي خليل ابن ابراهيم الفراهيدي سيدو شيغايو خليل ابن احمد
alfaraahidiy suu sheegayo dayqii cidhiidhigii buu ku fasiraya wuxuu leeyahy malaa'igtaa dhulku cidhiidhi ku noqda idan malaa'igta iyo dadkii fiicnaa baa soo dega hiya salaam baa ilaahay ku tilmaamay waa habeen nabadgeliyo shayطaan iyo inta xumaha wadoo dhan baa laga nabad galaa waa habeen maqaadiirta sanadka soo socota fiiha yufraqu kulu amrin xakiim maqaadiirta sanadka soo socdoo dhan lasoo qoro malaa'igta loo soo dhiibo waa habeenuu nebi maxamed leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu nebigu yihi man saama ramadaana iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih waman qaama laylaة اlqadri iimaana واxtisaaba gufira lahu ma taqadama min denbih xadiidku saddex shay buu tilmaamayey qofka ramadaan sooma iimaana واxtisaaba isagoo yaqiinsan oo rumaysan oo mukhlisa oo طaacada alle u ikhlaas samaynaya واxtisaaban xisaabsanaya ilaahay wacdigiisa iyo waciidkiisana rumaysan dembigiisa horaa la dhaafaa ninka ramadaanta tukada habeenadeeda isagoo iimaana واxtisaabana dembigiisa la dhaafaa habeenka kana si gaara ninka tukada habeenka laylat اlqadriga ninka tukada dembigiisii baa la dhaafaa baa la yidhi gufira lahu ma taqadama min denbi idan ayuha alaxiba waa habeenkaasi qadarkiisu uu weyn yahay ee uu baahan yahay qofka muslimka ahi inuu xoog u raadceeyo cibaadaadka ugu badan ee tobankan la sameeyo ee culimmadu tilmaamaan waxaa ka mid ah qur-aanka oo akhriskiisa la badiyo qur-aanka oo akhriskiisa iyo tadabburkiisaba la badiyo waayo ilaahay bishan buu u doortay inuu soo dejiyo nebigana calayhi الsalaatu wasalaam jibriil baa intuu u yimaado bisha tan qur-aanka la akhriyi jiray oo la daraasayn jiray sanadkii u dambeeyeyna 2 goor baabuu jibriil la daraaseeyo ku dul akhriyay culammadii muslimiinta ahayd ee ka dambeysayna waa ku dadaali jireen inay qur-aanka akhriskiisa badiyaan kow dee wax lagu wardiyey horta qur-aanka waxyaaba ugu fadli badana oo waa kii xadiidka nebigu ku tilmaamayay qur-aanka xaraf xaraf baa loo tirinayaa maxay akhriskiisa alif ba ta tha alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin saasaa lagugu tirinaya 140 ay faatixadu ka koobantahe xaraf macnaheedu waxa weeyaan 1,000 iyo dhowr boqol oo ajaraad yeelanaysa markaad faatixada qura akhrido idan qur-aanku wax lagu wardiyo buu u fadli badan yahay aakhirana wuu shafeecaya walidaalik ayaa salafkii ummadda tani waxay xoog ugu dadaali jireen inay qur-aanka in badan dhameeyaan bisha ramadaan waxaa laga sheegaa alaswad ibnu yaziid inuu musxafka markiisa caadiga ah 6dii habeenba mar dhamayn jiray ramadaan hadday soo gashana 3dii habeenba mar buu dhamayn jiray bay yidhaahdaan hadday 10ka dambe soo galana habeen kasta mar buu dhamayn jiray yacni waktiga caadiga ah subxii qur-aanka buu ku dhamayn jiray ramadaanna 3dii habeenba mar buu dhamayn jiray 10ka habeene dambena habeenkiiba mar buu dhamayn jiray imaamu shaafici isaga waxaanad malaynin baa laga sheegi jiray 60 khatmo buu akhriyi jiray bay yidhaahdaan imaamu madhabkan shaaficiyada soomaalidu haysataa 60 khatmo ayuu ramadaanta akhriyi jiray bay yidhahdeen 60 goor buu dhamayn jiray dadminis habeen iyo maalin kasta 2 jeer 60 khatmuu dhamayn jiray waa maxay waa wax hayru caadiya waa haddaas kii xadiidku soo arooray nahyiga uu nebigu u diiday cabdillaahi bn camr ibn caas 3 wax ka badan alxaafid ibnu xajar alxaafid ibnu rajab oo iswaafajinaya wuxuu leeyahay ana الnahya can qira'aةi الqur'ani fi aqali min 3 inama huwa calى اlwajhi اlmuctaad 3 habeen ka yar inaan qur-aanka lagu dhammaynin waa wejiga muctaadka ah ama fi اlamaakin اlfaadila ka maka liman dakhalaha aw fi اlawqaati اlfaadila ka shahri ramadaana wاlcashra minhu
فلا يكره وعليه عمل السلف إليه. عليه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه قراءة عادية وقفك مسلم كي سنة كيس عادية آخر سنة يمفعنا صدح كير إنه كل ما هي لأن كنت تدبرته وهو في ستابة الروح. أما أبو لي كسوى وجهك معتاد كي هدي هذا ما كنت فاضل كاتكتو مثلا مكوكا لا تكتو هذه يرجوجيسو أما أوقات فاضل كي يسوقشو سيدا بشهر رمضان وكله أما طبعا كعشاء وقدام بيو كله كراهية ما أبو لي إن كبد يسيد وصدح كير إن كل ما يسيد سيدا سانو قدر يريبو لي عمل في سلف صالحة يعني إذا كبد إن هذاك وأنت علماء يدين شيء يسوون بأننا كل عليه أنا قال رباهم ما دام إيمان تكوبي على باطن هيدا هبين بتجي لقيا بين السديدون هردي أما السجال هردي وبضته إن ندين دي رجاليه سئا آخر دينية حق سجينية عمل كينا ونكسن ودر درج لسان ووديراتنا وحي ذنوبه وحي مباحاته دنبي يسقى ما بهذا الهينة وحيابهم مباح إسكاها شاكدي وركي بدنائي هرددي بدنايدي وحا انت تصوي رئيسو بل سيدادا هبانا هرايا مسا قال كان هبانا هراي رقا انت نسكر دقل رقا بالرقي هران كده بطقرا سلف الأمة يسيو نغب جيرين والتصبيح تحميد تهليل لا حول ولا قوة إلا بالله صلى النبي عليه الصلاة والسلام قرآن أخرس يوحي لمدى الصلاة أن اسكت دينا إن بدنه وركيقو قلبته انت اسمك ديني صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بشارو dadka jecel inay xifdiyaan quraanka kariimka ah ama ba ay bartaan luqadda carabiga hadda waxa suurtagal ku ah inaad xifdido quraanka kariimka ah ama aad barato luqadda carabiga adiga oo jooga gurigaaga si habsami leh oo fudud iyadoo diyaar ay ku yihiin macallimiin takhasuskiisa leh markaska al-macaarif ee xifdiga quraanka kariimka ah iyo barashada luqadda carabiga waxa uu kugu soo dhaweynayaa inuu ku furay casharo ku bixi doona WhatsApp-ka iyo Skype-ka si aad u heer sareysa oo fudud waxyaabaha uu ku soocan yahay markasku waxbarasho horumarsan oo aad u hufan casharo u gaar ah waalidiinta iyo dadka waaweyn iyo barnaamijyo horumarsan oo loogu talagalay xifdiga quraanka iyo muraajacadiisaba casharada uu bixinayo markasku waa casharo ku bixi doona WhatsApp-ka iyo Skype-ka kuna fududaynaysa xifdiga quraanka kariimka ah iyo barashada luqadda carabiga iyadoo lagu ilaalin doono waqtiga si dib yarna loogu gudbin doono meelaha fogfog iyo wadamada kala duwan ee caalamka haddaba kala xidhiidh WhatsApp numberka ku xusan halka hoose.